nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laban gabadhan Soomaaliyeed qisadan xanuunka badan ee ku dhacday bal ila dhageyso iyada iyo ninkeedii waxa kala raacay wadaadkan ayaa goobjoog u ahaa isaga ayaana nooga sheekeyn doona wixii kala raacay bal ila dhageyso qisadan wax badan ayaad ka fahmi doontaa siiba habluhu aad ha u dhageysteen soo dhawaado waa qiso ka dhacday meel aan joogno waxaa jiray nin oo Ilaahay xoolo iska siiyay uu deganaa xaaskiisa 5 caruur ay lahaayeen marka ninkan xoogo Ilaahay xoolo siiyay wuxuu imaan jiray sanad walba Afrika u imaan jiray dawladda marka magaceeda inaan sheego qaardan baan sheega marka laba reason oo imaan jiray business rule lahaa familkiisana way joogeen meeshay joogeen marka uu soo noqonaya ilmihii marka dambe wuxuu go'aansaday maadaama markaas uu joogay 2 bilood jooga inuu gabarka guursado meeshuu yimaado mar walba markuu guursaday kadib gabadhii ayagunba isburburinay ayagunba guriyahooda iska burburiyay gabadha meesha joog mid kamid ah gabadhii xagga wacday waxay tiri oo moogtay ninkaaga inuu guursaday ma dhici karto ma ninkaaga uu guursaday waa kaas ninkii miskiinka iska noqday xagga tagay buuqa lagu furo waxa la soo guursaday Soomaha ani aad isma naqaano madaxigiisii ninkii markuu si kasto gabadhiisa rabay xaaskiisa rabay inuu u raali geliyo waa diiday wuxuu ku yiri gurigan ku dhisa dag masertir waa diiday wuxuu yiri dahabaan ku gadaa way diiday baabuur cusub ku gadaa way diiday xajjan ku geena way diiday dan culimadii masaajidka u bandhigay culimadii la hadashay marka gabadhu waxay soo istaagtay maya aniga oo hebel gabadhii la guursada laga ma yaabo okay ninkii markii la kari waayay gabadhii la kari waayay jaanis ku dambeysay marka wuxuu noqday anuu soo wacay wuxuu sheekhu gabadhan muxaadarooyinkaaga way dhageysataa qisasta ka sheekaysi jimcada iyo ducooyinka way dhageysataa waxaan rabaa inaan la hadashid gabadhan arintaas aa jirto gabadhii marka qisada dhan uu iga sheekay waa la hadlay walaal waxaan dhahay gabadhaas xaqi culays ku hays maxaa hal waxaan rabaa aqli ahaan inaan kula hadlaan dhahay waa u banaan tahay ima banaana geesans ka dhigno gabadhaas hadda xagga joogto culayskay kugu hayso maxay tahay gabadhii marka waxay bilaawday inay wax ka sheegto waxaan dambi ha gelin gabadhaas horta waxay kugu sameeysaa yaraatan ma jirto dhib ka jira waxa gabadhaha markii naag kale la guursado naagti kale caynaysa naagtaas dambi ma lahan ida xor qofsa adiga xor u tahay idan xor u tahay ninkaaga waaya haduu qof galay ninkaaga galay laakiin gabadhaas kale waxa isku leeyahay ma jirto hatta kuma banaan inaad tira fur diinta diiday hatta inaad tira naagtaas fur ama aniga fur wala diiday hatta adiga taada kada la gabadhaas miskiinta kama hadli kartid almin gabadhii ma waxaan walaalo wada hadloonay gabadhaas iska daa dambina ha gelin adan ku digaa almin marka la hadlay oo arko waxaan walaalo waaniyay u sheegay waxaan culays ku uma hayso ninka sanad walba soo ma bixi jiray 2 bilood ha labadii bilood baxay intuu meel kaliis joogi lahaa qofku ilaali soo ma rabtay ninkaaga jeceshid intuu kaliis dharkiisa dhaqan lahaa oo maqaayan ku cuntay lahaa qof uu ku dago oo takeer gareyso uma baahan almuhim gabadhi si kasta oo la hadlay waa soo istaagtay markii dambe waxaan dhahay wallahi waxaan dhahay khibradeedu waxay tusaysaa aan ku dhahay hadii amaanta ku madaxadkaatid ina ka shalaynaysid aan kugu dhaaranahay qayb kama ogi laakiin wallahi waad ka shalayn doontaa waxay ugu jirtaa waa mahadsantahay sheekh okay waa mahadsantahay markii kiiska waa laga xiray albaabka waa laga xiray ninkan la hadlay markii waxaan dhahay wax ka khayr badan Allah kugu bedelo bis waa arinta aan iga dhamaatay gabadhii sidii lagu furay gabar xoogo isku qurxanay ahayd ciidada markii ka baxday ninka la ku qabtay ninka markii uu guursaday nin Soomaali ma ah ninka dambo ninkii oo 2 bilood markii isqabeen maalin wuxuu ku yiri waxaan rabaa ina dadan cazuuma ah qada sameeysid gabadhu way tiri qada sameeysay gabadha Soomaali ma sha Allah qada waxay kariyaan macaan bariis cafaayo hilib alaabay karis guriga ninkii iyo martidiisa qolkay galeen waa la qadeeyay waa la baxay markii la baxay gabadhii xaaskiisa uu yiri heblo ee kaale waxaan rabaa inaan ku baro walaasha gabadhii markuu walaasha waa fahmi weyso waxay tiri adiga walaasha mise aniga walaashay markaas yiri walaasha okay si walaasha iyo bari wuxuu walaasha muslimada hada walaasha hadii ana walaasha adina walaasha waa maxaa ka wada waa fahmi weyso markuu wuxuu yiri gabadhan waa naagtan kula guursaday maanta waa gurigaan in kula sheer gareynaysa gabadhii indhahnay taagtay waxay tiri naagta ila aroosta qadida aniga ma sameeyay hada ninki waxa isla saxsan yahay maxaa ka qaldan xaraam inaan guursado ilaahay soo yima baneeyay xitr ha ilaahay ku baneeyay laakiin mush bi hadi tariiqa anina cuntadeeda ku kariyo oo guriga ku aroosteen gabadhii marka waa qaadays wax kale oo sii dare ka sii dar markuu wuxuu yiri maqal hal qol iyo hal barsan degana Soomaanaha maadaama hal qol hal barsan iidan caaw aroos tahay qolkaaga soo hagaaji sariirtii si fiican soo hagaaji si fiican soo firaash aniga gabadhan kale oo is aroosinay hadda galayno adigana barsada seexanaysa gabadhii waxay ku noqotay arrin kale oo culus
mid saddexaad oo ugu dar wuxuu yiri isbuuca oo ku aqalka oo maxaa lahaa todobaad maalmoodne adiga cuntada karinaysid ee ku talagal gabadhin dheetaad markaas do you have problem with that arrintaas dhamay kugu haysaa waxay tiri maya gabadhii marka way qaadan weysay waxay ii sheegtay marka habeenkii markii waxay tiri inta mar aan tamaniyay in albaabka ku garaaco asinaagtiisa ku jiraan xisaab ma laha markaas waxaan u maxaa u sameyn weysay waxay tiri waa cabsatay way ka cabsatay ninka calaashan nin Soomaali ma waa ka cabsatay waxa dhacday marka gabadhii waa qof markii culays badan la saaro uu san filaneen uu xanuunsana pressure ku dhacay gabadhii dehydration ku dhacay isbitaalka la geeyay faleeba lagu diray xataa dhakhtarka markii dambe warayso wuxuu ku dhibaato ma ku hayso abuse ma lagu sameeyay yani jirana kuma hayso korkaagan waa si buuxo korkaa waa qalaleen what's going on marka wuxuu meesha sheegay ama okay dhibaato yar ay haysto family problem ay haysto okay gabadha hooyadeeda wactay hooyadeeda markii wactay kadib waxay ku dhahday arintii uu sheegtay hooyadii aabihii uu sheegtay waxay tiri waxaan rabaa ninkan inaan ka furto gabadhan wuxuu yiri lagama yaabo arintaasna aniga galo ninkii hore igu ceebaysay mar raba inaan galo المهم واتقانا naagta de ninkeeda wax rabtay inay ka dhamayso si fiican ay ka dhamaysanay xaaji waa lagu celceliyay ilaa marka dambe uu aqbalay waxa dhacday marka culumadii uu tagay culumadii waxay la kulmeen marka ninkii oo gabadha qabay la kulmeen arintii u sharxeen ninkii waa xanaagiibo marka soo intiina culum waxa uu maateen aniga naagtiga furtaamiya maya uu iimaanina ka furnay waxa rabnaa wax hal inaan keeno ninkii culumada qaar kamid meesha jooga wallahi shay ninkii inuu istaagay xabadsan u taagay wuxuu anaga baqnay أنا ما يوافق عنك نفي عنها تاي وأصيب عن مع السلامة أنا نقول يا إسكجو هاي سجوا وبحنا نجى أنا جوانا اللي نكون بنمشي وأنا في عويسي نينكو أسكب علومة وحيران أنا ما أودني ناس سمين جبل ولالك هذا مركا علومة كم بدها جبل ولالك ولا شيء إهانة ذاني وح ودول قادم واي ولا شيء سنمشي إسكجو تاي ومهد ليسو بيدا وقف حنوصا يعني شاقة كودا عادي بعد هذا جارتي يقف ابن آدم دوقار قارني كل إنسان بلا جاي بالهاي حد عادي مركا walaalkii hada ninka kuna wuxuu maqal niyo walaashii ku marabta fur hada fur weysin wuxuu maxkamadan ku geeyna ano muslima maxkamigeen wuxuu muslimada aday ku taala gabadhan walaashii ku marabta Soomahan fur billati hi ahsan ma Soomahan wa bayna wa baynaka al-mahakim ma rabta miyaha anna ma barabibo hay fur ma fur lacag iga baxdo yani ma fura there is nothing free lacag iga baxdaani lacag ka baxda aroosti waa maxay gal aroos ii mi rabta lacagteedan rabaa هاي واي العقد أسوأ شيء أقول لهم وصو حسابتي وحير سريرته أسيو كجيفة هذا إناكتي سكلا وكجيفة سريرتي وصو حسابتي وحصو حسابتي سدح كوني حوجو ججبو كسوادكتي وحو كدري وحو إيش وحيالها ليا سريرتها بحسابته الدور ربع وحاليا وحيودها مالنتي سريرتها اللي سو كذا وحالو سوق هذا بابورك أو ناكتي ولا نينك أو شيخ ولا شيء سالو سوق هذا جاس أو كشوف حتى واحد وحير مالنتس جاس كاسان كشوف أنت سو كدر بالديتيل وحير وحاليا بي ما ورقدوا كقري جري ما بنجيو كسو برينتر جري يعني سوق قري wax walbo markaas soo xisaab markaas uu waxa kala jirto yiri anigana waxa igaaro damage morally diba igaaro dha ulaas aan filanayna igu dhacay marka taas marka isiisan kadib waxaan u baahanahay ani nafsiyan hatta waa diba igaaro waa ina qol aqli u siiyay naftarkeeda hadda wuxuu dibiga naak marka furto xooga waa taqaana diba ku gaaraayo marka wuxuu yiri waxa 3,000 xooga soo walaalkii 5,000 u keenay wuxuu yiri 3,000 xooga soo 5,000 boqolna waxa sheegayso u qaado walaashin hadda meesha khuluq furitaan xataa ka marabno walaga khalcina xoolaha qaado makhluucaat gabadhi walaashin ku khalciyay gabadhi sidii marka ay xuriyadeeda ku soo qaadatay gabadhi markay xuriyadeeda soo qaadatay way nasatay adiga maalmo bil markay joogtay amal waxay la xiriirtay marka ninkii hore ay kala tagayeen ay la xiriirtay waxay ku tiri marka waxaan rabaa inaan caruurtu arko ولقي لكن تاريخ هان أنت أنقل مواضيع أنقل نينكاس نينك في عن أو كابن آدم سن أو كأخلاق في عن ولي ما أركن رنتي نمن في عنا ويجران قبل في عنا ويجران نمن حنا ويجران قبل حنا ويجران لكن نين كانوا كل رنتي ما أركن تلفونه بس كنا غني ولقي فيس تو فيس وما ناك أيوم بقى يسوعي وهذا عند مركنينكي ويسوع الحكوي وحكوا ترجع عروتي وحكوا المقل عروتان شنتي أدي قاعد شيء مر الله على مركارة تعرف أنا أتي ما دي إيسو شيك وكفرين قرية هدا ربت إنا لدكتني أوجو أنستني إيسو شيك أنا أقول لك الإجارة نايو قولي واقع بحادي عروف هذا الجوجا كيف مركو روحي قبل المركو واسوس زيارنا
step waa soo ziyaarna ma hadan xoogo markii waxay tiri waa xaraba in xoogo la deego waayahay maalmaha kamid ah marka way u yeertay waxay tiri kaalina kula hadlaan rabaa waa waqtiga caruurta joogi lahaayeen caruurta marka waxay u geysay guriga hooyadeeda geysay caruurtii waxay rabtaa ninka eedii kaligeed inay isla hadlaan ay rabtaa waqtiga caruurtu ku weelaan dugsina ma jiro iskuulna ma jiro laakiin iyadana siyaas kale sax caruurtu waa kaxay hooyadeeda u geysay ninka markuu soo galay caruurta inuu joogo u maleeyna la naagtiis ma khalaas way mahram ma ahan albaabkii xirtay casiir biyo keentay marka waxay tiri aw caruurta ma joogaan inuu istaago waxay tiri ma yahay istaagana kula hadlaan rabaa waxay waa ka qaldamay dambi badan waa ka galay waana kugu xad gudbay waana dareemay dulmigan ka galay ee waxaan rabaa inaan isku noqono maxay kula tahay ninkii wuxuu ku yiri marka inaan isku noqono waa hatta yeeli jamal fi samil khiyam inaan kugu noqdo Soomaanaha markaas iidan ma aqoonin quraanka carabiga ma taqaan waxay maxaa macnihiisu wuxuu yiri cibada ma taqaanaa ha duleelyar Soomaalaha geel meeshaas ma la geli kara markaas ay tirmaya taas oo kale waayo dhax gabadhi waa xaawish abadan waa ninka wuxuu yiri laga ma yaabo waa wuba ku dhaartayba hadda adiga ka soo hirtanaagu yiri kuma rabo ilmahaaga ma rabtaay hooyadooda tahay kaama hor istaagay laakiin shakhsiyan Soomaaniga ha niideeda waa ka dhacday mana ku baahnay gabadhi marka waa xaawish anay soo wacday marka dad badan arrimooda ila soo wadaago marka dad qisooyin waxa jirta aan hilmaamin dadka haduu kilmo yar iiga sheego qof markuu codkiisana hilmaam wala laakiin markuu qisada wax yar ii sheego horiyaan ka xasuusan laan qisooyin aad u xanuun badan waa isoo wacday waxay tiri Sheekh Ahmed waa hiblo okay arrintii ninkii yar rabaa inaan kala hadlo marka waxaan dhahay wixii mid sheeko cusub ahaan igu sheeg markaas ma xasuustaa gabar hadda ka hor oo ninkeeda isqabsan jireen oo diiday marka waxaan dhahay ana hal meel iga dhigto waxaan dhahay gabadhii aan dhahay miya waa shalayn doontaa dhahaysi miya aan ku dhahay miya markaas ay tiri wallahi waa kursiga maalintii fadhi ila hadlaysay dhahaysi waa shalayn doontaa wallahi aan haddana fadhiyay tiri wallahi waana shalaay okay hadda maxay ii soo wactay marka maxaa rabtaa inaan ku qabto waxaan rabaa inay iga qabato ninkaan rabaa inaan la hadashid oo la hadashid adiga maxaa la hadli weysay waxay tiri aniga xoogo si waxay meeshay waxaan adiga la hadal waxay tiri waa la hadlay okay wixii idin dhaxmar runtii ii sheegan ani markaan dagaal galay waxaan rabaa inaan ku galo wax rasmi aan og laakiin marka wixii sheegtid oo tago oo opposite kan la soo kulma may rabay waxay tiri ma runtaan ku sheegaa ninkan saanaan ku dhahay waa ii ogolaaday anaa reey markii dambe aan isku noqdo hatta iyada ay sheegtay albaab caruurta hooyadood inaan u geeyo hooyadii inaan u geeyo saanaan sameeyay inaan isku noqonaan rabnay laakiin wuxuu igu yiri tiri quraankii meesha ugu sheegeen kelmadaas way ugu dhahay hatta yiri jamal fi samil khiyar okay marka waxaan dhahay ninka run ahaantii xaq u leeyahay aan dhahay inta samar lagu soo mar laakiin I will try adii nasiibka waa la hadlaa ninkii soo wacay way qabtay marka waxaan ku raniyahay waa ku baahnaa inaan kula hadlo waqti ma haysay waa la hadlay marka wuxuu Sheekh Ahmed oo khayr Allah ku siiyay arintaas wuxuu yiri waa arin dhimatay ka soo qaado u dhahay mar raba inaan ku noqdo gabadhaas gabadhiina igama herin asigina hadal fiican ima siinin marka dambe waxaan ku dhahay maqal muhaawado ugu dambaysan sameeynayna waxaan ka rabaa maadaam qaladka qof galay aad tahay oo ictiraafsan tahay cudur daar soo qor warqad cudur daar qof uu qaldami karaa ceeb ma ahan laakiin qaladkaaga ina qaldantay oo haddana diyaar u tahay inaad ka baxdid soo qor gabadhi marka way u tiri maalmay maqneed waxay soo qortay warqad xawmareena gabadhaas waxay ku takhasus qor essay markii la qoray waa taqaanaan waxa la sameeyay muqaddima la sameeyay la qoray body la qoray 3 paragraph 5 paragraph kadib conclusion loo sameeyay exactly sidoo kale u soo qortay warqadda marka waxay sameysay aniga text message ku soo dirtay aniga iyo asiga hal group noo soo sameysay magacii ima save gareysno waa fiir warqad markaan fiiriyay waxa arkay naagtaan ninkeeda amaanayso waxaan ma sha Allah naagtaan ninkeeda san amaanayso naag caadi ma ahanba soo aqrinay markii dambe aan arkay waa fiiri waxa ku qoran ninkii malaa'igay ka dhigtay say u amaantay waxay tir saana tahay oo saana ahayd oo saana ahayd markii amaantiis ka baxday waxay ku xijisay marka paragraph ku xijisay waxa way ida iska hadashay anigana waxay tiri waa ka qaldamay intii qaladaadkeeda dhan ay qortay dulmiga ka galay waa kugu xad gudbay tan saddexaad paragraph saddexaad waxay qortay marka hadda waxay diyaar u tahay wax kastaan sameeyay qaladan sameeyay waa qaladkayga waa qaatay wallahi diyaaran waana ka shalay run ahaantii ma ahanay tiri waa caruurteedii waxaan jecel caruurteedii inaan aabaheedu isku hayaan jeclahay kilmar marka hallayna kaligiis ee bold ka dhigtay wuxuu ku soo qortay marka noqoshadan kugu soo noqonaya caruurtaada waa part laakiin aniga ku jecel oo ku rabo
caruurta waa rabaa in isla haysano laakiin anigana uma maleynay nin adiga ka fiican inaan heli doono mana rajaynay mana u maleynay inuu joogo sida darteed waxaan ka codsanaa inaa igu noqotid waxay tiri marka dambina waa la galay waana laga toobad keenaa ilaahaygiiba dadka uu caafiyo waxaan ka rajaynayaa inay caafisid runtii warqadii markaan arkay waa atharat fiini waa fogo si fiican ay ta'tiirisay waxaan go'aansaday marka ninkii warqad uu gaaray waa arki karaa inuu arkay lana hal group aan ku jirnaa inuu arkasin uu arkay kamuusa soo jawaabay warkadan waxaan go'aansaday markii aniga u tago baabuurkayga qaatay ilaa meel dhowr saac loo socdo waa meesha ugu tagay waa wacay mar salaamu calaykum hebel calaykum salaam ha sheekh axmed marka xare inaan ku arkaan rabay ha oo waa ogahay telefoonka may inaan ku arko soo magaaladaas ma deganeed ha oo may waxaan aniga imaado magaaladaadaan joogay magaalada joogtay ha inaan ku arkaan waa rabaa okay maqaayadaas hebel aan sugu nimaadno kafeegan sugu tagna maqaayadii waa la fariiso waxaan maqal oo ku soo gaabina cala albalaata seedaha carabta من غير مقدمات نيو أنا مقالة دقنا واتقنا سوا معنا كولومبوس وهاي دقنا يا أنت ساعود حوسو درايف جري for one reason هذه جناك هذا حاسي هره هبلو إن أكون نقطنا كشقاية نينكي وستاجي ولا لو ناس مركوحنا مقالة هذه كوطالة أنا كلمة دم pressure دم مجرى أنت سميك الواجمي والله بالله وحن أصابح أنت ومركز سويري وقام سحور سؤالا كويدين إلهن كود داري سفر كان وحن أصاب شيء إن أنا جي حاجة بس مسكين عيلسيت markaasna wallahi wax kala ma intaas leeyahay markaas wuxuu ugu yiri wallahi marna kuma tala jirin gabadhaasna ku noqdo laakiin safarkaas oo gasho runtii wuxuu yiri inaan ku celiyo aadigu adag tahay wuxuu yiri waa haye gabadhiyo waano meesha la joogo wiligiis muusan waan gabadha way qabatay markaas tiri hay salaam alaykum markaas wuxuu yiri sheekh axmed ila joogo arrintiina waxaan rabaa inaan isku noqonaan rabaa yiri waa khalaas wuxuu waxaan go'aansanaa isku noqono gabadhi marka wuxuu ku tiri ma hubta adiga hebel miya markaas uu sheekh axmed ila joogo oo magaalada safarka soo galay oo yimid inaan isku noqonaan rabnaa shardiya jira laakiin inuu sheekh axmed qof kale ma helinaynin marka waxaan dhahay hadda intaas dhowr saacadood soo socday hadda dhowr saac kala soconaa waqtiga kale magaalada imada mashquulna waa ahay marka wuxuu yiri wax dhib ma lahan gabadhi arrintaas uu sheegay waxay tiri hadda aabahay halala hadla haddana hala nikaax maxaa loo dahdaha wixii aroosi ana sameysana laakiin axmed duba hadda baxay hadda hala sameey okay marka aabahay aan waanay arrintan uu sheegay aabahay faamilku rumaysan way asigana ninkii ma gabadhu ku noqonaha ma hubtahay waa hubay sheekh axmed oo khayr allah ku siinay waxaabato khadar inay soo dariyaatay hadda isku celinaysidba marka waxaan dhahay waxa ilaaha gacanta ku hayo sida ay marka ninkii iyo gabadhii nikaax uu soo sameeyay abtiyo may maqashaa aad u weyn sharlaaw ilmahan soo dirayaaye hoy igu diyaari oo abtiyo macnaha ula jeeda sida aad u keenin dalkii afar jir baa u yaraan ah alifna looma bilaabin ayam suru wallah oo mid aayad quraan ah akhriyaan la helay ayagoo jooga agtaada u dhigo dugsiga calaashan online oo sidee abtiyo ayagoon aadin banaanka oo aqalkooda dhex jooga macallin kuugu akhrinaya online kuugu dhigay ayaa kuugu diyaar ah Al-Sunna Institute macadka Al-Sunna oo qaab online wax looga barto adigoo dalka ama dibadda jooga waxyaalaha ka baran doonto waxa kamid ah barashada hikada barashada quraanka barashada axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam barashada ducooyinka iyo guud ahaan waxyaalaha ku tacalluqa shariicada islaamka Al-Sunna Institute wax ka baro adigoo jooga dalka ama dibadda kuna baro adigoo jooga gurigaaga wixii faafahinta dheeri kala xiriir lambarada iyo jiimeelada shashada ku qoran